taariikhda gurigan iyo sidii lagu aas-aasay ayaa waxaa inooga sheekaynaysa madaxa Xafsa binta Siriin Marwa Xaawo Aadan. Ismaan u baahan insha Allah inaan wax ka kooban oo bixin ka bixiyo. Meeshan hadda arkaysaan fadhino quruxda alxamdulillah waxay ahayd meel ka saaran tahay oo salaada lagu tukado inteeda qorana qorax iska ahayd oo bannaan waxaa jirtay in macadka ardaysa sanad ka dambayso ay sii kordhayaan sashika uu ada markasta ku fadhiyana qaybtana ay aad u yarayd wixii lagu iibiyeyna ay ahayd 6 qol marka waxaan dib kaga darnay 1 qol weli uu ceeligamay waxaan darnay qaybtan dhismaha biraha iyo waxyaabaha kale ka samaysan oo dhinaca laga koro qaybta waxaa korkeeda saaran 5 qol oo waaweyn oo ilaa 40 arday qaadayso intina bilaa alxamdulillah buuxsameen 5 hoose iyo 5 kore kadib waqtigii koronaha anagoo meel aan sanada fasaxii la galay dheeraa 6 bilood ahaa ayaa waxaan ku fikirnay meeshan in aan ka helno kalaasyo kore ilaa hadda sida looma maarmin labadan hood salaada looma maarmin marka xilligaas waxaa xilli koronaha hoos u dhac badan oo arday ku yimid oo macadka ka baxay macadka iskaba xiran dhaqaalihii hoos u dhacay macallimiinta mushahar helin markaasuu iska xiran yahay fursadda keliya aan fiirnay ayaa waxay ahayd xilligan ay meesha cilada tahay in dhulkan la dhisi karo lacag umaan haynin waxaan marka anagoo muasasaadkii aan la furanay ardada qaybo ka mid ah waxaanan ka codsanay dhulkan foundationkiisa hoose inay naga saacideeyaan in aan soo dhisno qorshaha wuxuu markaa 15 tiir oo guriga ku taagan yahay in kor loo joojiyo foundationka la shubo asaaska hoose la shubo halka aan ku joojino jiingada aan ku soo ceshano aan ku wastukano laakiin ardadii maasha Allah macadka dhiganayay iyo maamulkii iyo macallimiintii waa isdarabsadeen qorshe wanaagsan oo waxay sameeyeen qaaraanbileed ah qaaraanbileedkaas ruux walba waxbaa ku qoran laakiin ma joojinayo u bixinayo walba ruuxa u yar ku shil baa ku qoran ruuxa u badana 10 baa ku qoran waxaa xusid mudan ardadaas inay gaareen 66 arday markii qaybaha muasasaadka iyo macallimiinta xubnaha lagu daro 66 ruux ay noqdeen waxaa 67 ku ah nin walaalkeeda oo muxsin ah oo xaaskiisa ay macadka dhigato oo qaarankaas ku darsaday bil kasta 40 kun inuu bixiyo maasha Allah ninkaas waa duceynayna khayr Allah siiyo waxaan filayaa isaga marka laga reebo gurigan hadda dhisan wax rag ka yimid si mutaasa uga yimid waxaa ku jira waxaa ka jira 100 kun oo Kenya money ah oo gurigan qori hoos rinjiga lagu geliyay lacagta ku baxday dhismahan markii dambe Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu deeqii isku xiray oo isxambaarsadeen sida arkaysaan ay waxa uu noqday qaybtan hoose oo salaad aan ku tukano shirarkan aan ku qabsano imtixaanaha lagu sameeyo oo muhiim noo ah iyo qaybta kore oo ka kooban 4 qol 2 musqulood iyo meelaha farxadka iyo jidada iyo barandadoodii xagga banaanka u jeeda xilliga inta ay dhamaatay lacagta ku baxday waxay ku soo fariisatay 7 milyan iyo bar Allah lacagtaas waxaa deyn ugu noqotay 2 milyan iyo bar ayaa deyn ugu noqotay ilaa hadda 2 milyan baa weli deyn ah ilaahay mahadiis kulley weli gacan kale oo wax laga soo gaaray oo wax ka bixiyey iyo cid muxsina kharij iyo daakhilba yani gudaha iyo dibadda ma aan helin anagu baa la qabanayna cid wax ka geysanaysa oo soo dhaweynayna alxamdulillah marka guriga ayaa wuxuu ku socday muddo 7 bilood ah hal bil ayuu naga istaagay oo aan kharashkii gacanta kundiga aan u weynay wixii intaa ka dambeeyna waa soconay oo alxamdulillah way socotaa deyntan ilaa hadda waxay ayaa baxaa maanta qaaraanbileedkii weli uu baxaa alxamdulillah waxaan si khaas ah ugu mahadcelinayaa ardada macadka dhigata khaasatan dadka waaweyn oo si aad isugu dhawaajabiyay runtii inay
hawshan iyada ay hirgasho kuma ekayn waxay deeqooda ka soo bixiyeen waxay gacantooda ka soo qaadeen kuma ekayn waxay u qaadisteen cid alle ciddii ay u arkayeen in ay maaragtay ay gacan ka geysan karto dal iyo dibadba caruurahoodii qaraabadoodii asxaabahoodii لأنه وقالت تلحدن يو سدح بروح وأفر كميدة أي بحصو أفر كميدة أي بحصو طوقنا كي مريئة إنت كلانا أي تهاي وإنت هسكير شنكوني وكسيرة العكس إنت على أي بحين كنت لكن جوك بحين بحين حوق له أو أي مرض الأمور وعقلين أو مركز إلهي بنوك سهري اسمي إنونا يوسف كالبوين قبلها كقيم قاطي انت دعاء قاميسي انت فرح سنه انت مسلمين تروى مهسين وحسيت مضل او انا كشيء عن جعلها جوجبيو لو قبلها قضى كامله يا وحقو تحتي ويل المكتين وحقو تحتي ان كسو قادو قاران ير او طبعا مسيرواتك ما حسوقها او مسلمين كان قيم قاطي والدين سوء صدقين wiilka markii dhismaha loo sheegay markaskii goodhi ka waraystay kadibna uu ku qancay xili mas-uuliyiintana igu yeero aniga ayaa u tegay waa ninka la yidhaahdo maxamed cabdullaahi sambul oo markuu socodkii arkay macadka iyo warbixinsi la siiyey dhulka weyn 9 boqol ay ku taalo sadaqaystay gabadhaas waxay raadinaysay 10 kun oo waalidiintiisa ugu darsado meeshaas waxaa ilaahay uu sababta kusoo sahlay dhul lagu qiimeeyey 15 milyan maanta gooyla hadii la iibiyo dhammaan martida iyo kasoo qaybgalayaasha mar kale waa mahadsantihiin waqtiga aad soo geliseen iyo saad maaragtay farxada leh maanta aad nagala qayb qaadateen dhismahan aan aad u faraxsanahay inaan raaxa qadaanahay iyo dhammaan ummadda muslimiinta baan ka faraxsan yihiin wabillahi tawfiiq. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.